mahad celinaa madaxda imaaraadka sida sharafta ay noo qabtay waxa weeye kulli waxa jeceshin de maxaa maqaam sarun baa sheegteen in wixii la soo jeceshin baahideen way badan tahay aad iyo aad u baahan tahay wadan marka soo koriya inoo soo baxayo nahay waxa inagu daraa waxa weeye arrimaha dadkeena ku wareegaya baasaboorka xoolaha oo la joojiyay nabadgelyadeena amnigeena dhaqaalaheena waxaan ku haynaa war fiican alxamdulilah rabbil caalamiin baasaboorkeena waa la ogolaaday insha allahu tacaala waxaan jeclahay haddii marka imaaraadku ogolaadaan inuu khaliijku dhan ogolaan doono oo furihii waa halkan ka gelinay xoolihii waa la ogolaaday imaaraadku haddaba bilaabayaanba wasi 2 days inay iibsadaan sacuudigana way ka hawlgeliyaan isna dhaqso u bilaabaya haddii alla yidhaaho wax u weyn oo dalku ay ku jira waa amniga haddaan amni lahayn nabadgelyo jirin xuduudaheenu secure ahayn iskuul ma dhismayo uma waariyo isbitaal ma waariyo baxmishan ma waariyo xaggaasna way naga caawinayaan waa ta keentay in loo yeedho taliyayaashii nabadgelyada inoo joogay booliiskii militarigii badii iyaguna way ku maqan yihiin technical teamkii baankii xaggii dhaqaalaha subxaana watacaala ilaahay subxana watacaala dee run iyo beentii buu kala saaray habeen iyo maalintii buu kala saaray somaliland inaan ahayn wax gacan lagu qarin karo oo la qarin karo soomaaliya somaliland way kala baxeen dal jiriya dal aan jirin yahay way kala ogaadeen dad lagu soo hagaagi karo oo la aamini karo iyo dad aan la aamini karin oo maxaa cuntaa uun ka shaqaynaya aan qaran u jeedin waa la kala bartay way ogaadeen xiriirkii soomaaliyeed ay sheegi jireen in inagu aynu ahayn dad kale macaamili jireen way qareen iyagoo mashiidaa lahayn inay dadkeenu gacan ka geliyeen horumarka dalkaasi xiriir soo jiraa lahayn ilaa muquumaddeena bay ka sheekeynayaan inaan muquumad looga keeni jiray dalkeena kii reer beledweyne lahaa waxbaanu siin jirnay beledweyne miyaa badba leh waxay ku arki jireen doonyo wax iman jireen berbere marka waxa weeye khayraadka inoo yimi inaan midnimadeena muujino oon wada gurano ka baxno qabiilka ayaa weeye anugu markaan raacnayna waxaan tusinay in lagu dhan yahay 3 xusbiba ay go'aamada iyo heshiiska la wada ogol yahay yaanu taasan ka markhaati ka hayay baarlamaanka waa kiisna ogolaaday inay Soomaaliland dhan u duuban tahay oo wax ka soo horjeeda arrintaas waxaan social media lagu qorqoriyaan waxba ka jirin taasoo soo xaqiiqareynay de waxaan filayaa inaynu waxyaalo badan ay isku keen wareeriyay wuxuu ahaa uun dhaqaale xume dhaqaalo inoo imaado kala foofi doono ayaan filayaa insha Allah taala qofka si hawshiisa qaban doono siyaasadda intii siyaasadda wadi doonto aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa mar kale waftiguna si fiican baa wada shaqeynayeen de diyaar garooba oo yaanay khalkhalin haddii ay markaa خير إلهك رجينا سبحانه وتعالى إلهي نبض ضاصي نوكو وارو